Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa Garaati fi qodobada aad xilligani daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka oo hor istaagay mooshin la doonayay in lagu kala saaro maamulada SSC Qaatumo iyo Puntland kaasoo ay keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qodbad xasaasiya ka jeediyay shirka wadatashiga qaran oo ka furay magaalada Muqdisho kaasoo lagu guuldaraystay in laga soo qayb galiyo siyaasiyiinta mucaaridka ah oo si cad ugu gacan sayray. dawladda Qatar oo dhiibaysa dhaqaalaha ku baxayaha hub cusub oo casriya oo dawladda Turkigu ay siinaysa militariga Soomaaliya iyo wasiirada gaashaandhigga labada dal oo isku afgartay arrintaasi. dagaalka u dhaxeeya wadamada Iran iyo Israel oo laga digay saameyn uu ku yeelan karo dalal ay ka mid tahay Soomaaliya. qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya oo la ogaaday in kooxaha argagixisada ahi ay dhex marsadaan lacag malaayiin dollara. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbinaynaa haddii Allaha awoodda leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. waxaase ku xasuusinayaa haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. markasul muttaqiin litaxfiid alqur'aan alkariim ku bara qaab online quraanka culumta shareecada islaamka adiga oo jooga gurigaaga goobtaada shaqo dal iyo dibad. xarunta oo ay heegan idinkugu yihiin macallimiin khibrad u leh waxbarista carruurta iyo dadka waaweyn waxa ay furan tahay 7 maalmood 24 saac. waxyaabaha aad ka baran karto waxaa ka mid ah quraanka kariimka, culumta tafsiirka, barashada sunnada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, cilmiga fiqiga iyo luqadda carabiga. xarunta waxaa diyaar idinkula ah macallimiin ku hadli kara afka Soomaaliga, Ingiriiska wixii faahfaahinna nambarka hoose nagala soo xiriir ama shaashada saaran. aan ku bilaabay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Puntland ayaa hor istaagay soo jeedin ay wadeen xubno ka tirsan baarlamaanka oo doonayay in dib loo furo dastuurka maamul goboleedka Puntland si loo kala saaro maamulada SSC Qaatumo iyo Puntland. xildhibaanada baarlamaanka Puntland gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolka Bari qaarkood ayaa soo jeediyay furista dastuurka iyagoo sheegay inay muhiim tahay in dib u sixid guud lagu sameeyo. hase yeeshee gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku gacan sayray soo jeedintaasi isagoo sheegay in furitaanka kalfadhiga golaha aan lagu soo dari karin wax la xiriira furista dastuurka maamulka Puntland. diidmada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaa la sheegay inay ka timid dhinaca hogaamiyaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Deni kaasoo xilligani si adag u diidan in kalfadhiga golaha looga hadlo wax la xiriira furista dastuurka Puntland. xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Puntland gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolka Bari ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe la xiriira in dib loo furo dastuurka dowlad goboleedka Puntland si loo kala saaro SSC Qaatumo iyo Puntland kadib markii magaalada Laascaanood laga dhisay maamul ay samaysteen dadka halkaasi degan isla markaana aqoonsi ay ka heleen dawladda federaalka ee Soomaaliya. hase ahaatee hoggaanka iyo siyaasiyiinta maamulka Puntland ayaa si weyn uga soo horjeeda arrintani iyagoo weli ku adkaysanaya in SSC Qaatumo ay ka mid tahay dhulweynaha maamulkaasi xitaa iyadoo aqoonsi ka heshay dawladda federaalka dadaalna ugu jidha imika inay si buuxda u noqoto mid ka mid ah maamul goboleedyada hoostagaya dawladda dhexe ee Soomaaliya. dastuurka Puntland ayaa la furay ka hor dib u doorashadii madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni markaasoo khilaaf xooggan uu ka dhashay arrinta furista dastuurka. hase yeeshee xilligaasi madaxweyne Siciid Deni ayaa danihiisa ka dhex arkayay dib u furista dastuurka. wararka ay heshay warbaahintu waxay sheegayaan in haddiiba furista dastuurka haatan looga doodo baarlamaanka ama la isla aado inay qasab noqonayso in laga hadlo kala bixista maamulada SSC Qaatumo iyo Puntland
arrintaasoo hadda ay dabada ka riixayaan siyaasiyiin kooban iyo xildhibaano laga soo doorto gobolka bari ee maamulka Puntland. arrintani waxaa sidoo kale si weyn u danaynaya waxgaradka iyo bulshada SSC Qaatumo, kuwaasoo aaminsan inay dhisteen maamul ay iyagu qaas u leeyihiin, xaruntiisana laga dhigay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ka gadaal markii ay iska saareen xukunkii Somaliland sanadkii 2023. waxaana ay si weyn kaga soo horjeedaan sheegashada Puntland ee in SSC Qaatumo ay ka mid tahay dhulweynaha uu qeexaya dastuurka maamulkaasi. Puntland ayaana waxaa hadda xilal ka haya siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda SSC Qaatumo, gaar ahaana beesha dhulbahante ee majaraha u haysa maamulkaasi fadhiya Laascaanood. waxaana ka mid ah siyaasiyiinta ku jira Puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas, inkastoo waxgaradka iyo hoggaanka SSC Qaatumo ay sheegeen in dadkaasi ay yihiin calooshoodu shaqaystayaal aan cidna matelin. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo markii hore taageersanaa SSC Qaatumo intii ay dagaalka kula jidhay Somaliland si ay dhulkeeda u xoraysato, ayaa muddooyinkii dambe muujiyey inuu ka soo horjeedo aqoonsashada maamulka SSC Qaatumo iyo inuu ka madax bannaanaado maamulkiisa Puntland. waxaana hadda la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu ku amray diidmada qorshahani ay wadeen xildhibaanada gobolka bari ee dib u furista dastuurka maamulkaasi. Siciid Deni waxaa la aaminsan yahay inuu carada ugu weyn ka qaaday xiriirka dhow ee dhex maray dowladda federaalka iyo hoggaanka maamulka SSC Qaatumo oo ugu horeeya Cabdulqaadir Firdhiye, kaasoo ka qayb galay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka iyadoo ay ka maqan tahay Puntland. waxaana Siciid Deni uu doonayay in arrimaha siyaasadda uu Firdhiye isaga u daba fariisto, iyadoo taasi uu ka booday Firdhiye isla markaana uu xiriir dhow la yeeshay fila Soomaaliya oo ay isku dhacsan yihiin Puntland tan iyo markii uu xafiiska ku soo laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka furay magaalada Muqdisho shirka wadatashiga qaran iyo arrimaha masiiriga, kaasoo socon doona muddo 3 maalmood isla markaana ay ka qayb galeen aqoon-yahan, waxgarad, culimo udiin iyo siyaasiyiin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana khudbad xasaasiya ka jeediyey furitaanka shirka, taasoo uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, arrimaha amniga, dhaqaalaha, doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa marka hore ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Soomaaliya, waxaana sidoo kale uu ku faanay tallaabooyinka horumarka leh ee ay qaaday dowladdiisa muddadii uu xafiiska joogay madaxtooyada. waxa uu ku faanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dayn cafinta, qaadista cunaqabatayntii hubka iyo koobeeristii bulshada bariga Afrika, iyo in ay xoojiyeen qabka iyo dowladnimada waddanka Soomaaliya, sidoo kalena uu dagaal adag la galay argagixisada shabaab. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxa uu sheegay inaanay marnaba suuragal ahayn in dadka Soomaaliyeed ay hal meel iska sii taagnaadaan ilaa 40 sano, loona baahan yahay horumar siyaasadeed iyo in dadka loo sameeyo isbedel. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isku tilmaamay inuu ka duwan yahay hogaamiyaashii ugu dambeeyay ee soo maray dalka, kuwaasoo iyagu aaminsanaa in xoog iyo marooqsi lagu haysan kara kursiga, hase yeeshee uu isagu talada dhulka dhigay, isla markaana uu doonayo inuu la tashado qof walba oo Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yidhi waxaad arki jirteen madaxda oo laga baryayo in ay wada hadal la yeeshaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in maanta ay iyagu gogol dhigeen, isla markaana ay baryayaan siyaasiyiintii mucaaridka ahaa. isagoo u duurxulayay madasha mucaaridka oo diiday ka soo qaybgalka shirkani, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in shalay ay ka baryayeen
madaxdii xafiiska joogtay in ay mar uun la hadlaan halka iyagana maanta laga baryayo inay wadahadal u soo fadhiistaan gogoshana ku soo bandhigaan waxyaabaha ay tabanayaan iyo fikirkooda siyaasiga ah. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu dambayn sheegay inaanay marnaba suuragal ahayn in dadka Soomaaliyeed hal meel lagu sii hayo loona baahan yahay in ay markani codkooda ku soo doortaan hogaamiyaha ay doonayaan inuu dalka xukumo. dunida oo dhan waxaa isha lagu hayaa xiisada dib uga soo cusboonaatay gobolka Bariga Dhexe ee ka dhex aroosan wadamada Iiraan iyo Israa'iil. meelo badan waxaa durba laga dareemay saameyn cabsi dhaqaale oo caalamiya. qiimaha shidaalka ayaana sare u sii kacaya waxaana la isweydiinayaa waxa dhici kara haddii ay Iiraan xidho gacanka muhiimka ah ee Hormuz kaasoo saliidda marta lagu qiyaaso 17 milyan dhibic 2 maalin kasta si joogta. cabsi amni oo barbar socota tan dhaqaalaha ayaa wadamo badan ay qabaan dalalka ku yaala gacanka cadmeed oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaana ugu horeeya sida ay qabaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo arrintani BBC-da uga waramay. waxaana ka mid ah Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo muddo dheer culunta dhaqaalaha iyo siyaasadda ka dhigayay jaamacada ku yaala Mareykanka. Professor Ismaaciil waxa uu yiri dhibaatada ugu weyn waxay ka imaanaysaa dhinaca dhaqaalaha. maraakiibta maraysa xeebaha Soomaalida marinka Suways iyo gacanka cadmeed ayaa laga yaabaa inay arrintani saameyn ku yeelato sida in ay joogsadaan maadaama uu sicir barar ku yimaado. saameyn kale waa in dagaalku u gudbo gacanka Hormuz iyo waqooyiga badweynta Hindiya sida uu tilmaamay. aragtitaasi lamida waxaa soo bandhigay Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo cilmiga taariikhda ka bartay jaamacadda Oxford haatanna cilmi baare ka ah akademiyadda hogaaminta Afrika ee jaamacadda King's College London. Soomaaliya waxa ay halbowle u tahay saliidda ka soo baxda Bariga Dhexe ee maraysa gacanka cadmeed iyo marinbiyoodka Baabulmandab. saameynta ugu horeysa waa tan dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaalidu la leedahay wadamada bariga fog. saameyn kale waa dhanka hawada oo durba diyaaradaha caalamku ay joojiyeen inay isticmaalaan hawada wadamada qaarkood. inta badan wax soo saarka gaaska Afrika oo hooseeyaha si gaara colaadaha iyo caqabadaha amniga ee Soomaaliya waxa uu hoos u dhigay beeralayda oo ay u dheer tahay abaara soo noqnoqday iyo fatahaado meelaha qaarkood ka dhaca. inkastoo dhinaca dhoofka xoolaha sanadkii 2023 lagu sheegay in ilaa 70% xoolaha Soomaalida oo iskugu jira geela, lo'da iyo ariga qiimahoodu sanadkii lagu qiyaasay 1 bilyan loo dhoofiyo boqortooyada Sacuudiga. haddana waxaa jira caqabado ay wajahayaan oo ah in dalalka qaar sida Shiinuhu joojiyay xoolo ay kuwa Soomaalidu ku jiraan. taa badalkeeda macaamiisha inteeda badan oo ay ku jiraan cuntooyinka maalinlaha ah waxa ay ka yimaadaan wadamada dibadda. haddii colaadu ay ku baahdo gobolka waxaa la filan karaa saameyn ku timaada helitaanka badeecadaha raashinka ugu horeeyo ee ka Soomaaliya. Professor Ingiriis oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay dhaqaalaheena iyo waxa laga cuno wadanka gudihiisa waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka la soo waarido dalalka dibadda sida Shiinaha iyo Thailand oo soo mara Dubai. waxaa kici doona maciishada quntul daruuriga iyo shidaalka. saameynta waxa keenaya goobta ay Soomaaliya ku taalo oo ah mid istaraatiiji ah. arrin kale oo muhiim ah waa midda amniga. Iiraan waxay taageertaa xoogaga hubeysan oo ay ku jiraan Xuutiyiinta oo masaafo aan badnayn u jira Soomaaliya gudaheedana waxaa ka dagaalama kooxaha hubeysan. haddii dunidu ay gasho dagaal saddexaad waxay Soomaaliya yeelan kartaa saameyn togan iyo mid taban. tan ugu horeysa waa in Soomaaliya ay noqon karto goob ay quwadaha waaweyn ee dunidu ku dagaalamaan. kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha ka jirta ayaa sababi karta in lala kala safto awoodaha herdamaya ee galbeedka
iyo kuwa ku buhoobay. Braises Brofesor Cabdiwahaab Cabdisamad oo ah cilmi baare madax ka ah macadka daraasaadka iyo istiraatiijiyadda ee Afro-Asia. kooxaha ka dagaalama Soomaaliya sida Daacish ama Al-Shabaab waxa ay xiisadani u abuuri kartaa isbahaysi cusub oo ay helaan, waxaana dhici karta in ay la safato Iiraan, iyaguna ay taageero u muujiyaan haddii ay xukuumaddu la safato reer galbeedka oo saldhig laga siiya Soomaaliya. waxaa dhici karta in iyaguna ay taageeraan ururada islaamiga oo ay Soomaaliya ku kiciyaan, taasina waa dhibaato hor leh. waxaa dhici karta inay soo baxaan dad Soomaali wadaniyiina oo arrintani ka faa'iidaysanaya haddii ay xukuumaddu la safato. waxaa dhici karta in kooxahaasi ay is-abaabulaan si ay xukuumadda u ridaan lana saftaan dhinaca Iiraan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan kula qaatay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Qatar mudane Sheekh Saacad bin Cabdiraxmaan bin Xasan Al-Tani. labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dhinac ee dhanka difaaca iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalada lagu dhisayo awoodda ciidan ee Soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee labada dal. sida laga soo xigtay kulankani, dowladda Qatar gaar ahaan wasiirka gaashaandhigga ayaa ballan qaaday in Dooxa ay dhiibayso qarashka ku baxayaha hub casriyaha oo dowladda Turkigu ay ku qalabaynayso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. arrintaasoo uu si weyn uga mahad celiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. waxaa kale oo kulanka lagu adkeeyey xoojinta xiriirka xooggan ee ka dhexeeya labada dal iyo sida ay uga go'an tahay labada dhinacba horumarinta nabadda iyo amniga gobolka. maamulka Puntland ayaa shaaciyey in malaayiin dollar ay Daacishta Soomaaliya marsiiyeen shirkadaha isgaarsiinta gudaha iyagoo isticmaalaya simkaaris dhowr ah. xogta lacagaha ayaa la helay kadib markii ciidamada Puntland ay gaareen calmiskaad oo saldhig u ahayd maleeshiyada Daacish, sida uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Deni. ayaa shaaciyey in kooxaha geysta falalka ammaan xumo ay adeegsadaan telefoonada shirkadaha deegaanka, isagoo xusay in la helay xog muujinaysa in simikaarada shirkadahaasi ay qayb ka yihiin lacaga malaayiin dollar ah oo kooxaha argagixisada ahi ay dhex marsadeen. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta. nabadgelyo.